Markii uu gaboobay ayuu wuxuu waayay ubadkii uu garabka sugayay, waxayna ugu abaalgudeen inay ka doortaan xaasaskoodii noloshiisiina ay dhaafiyaan. Waa qiso aad u xanuun badan oo dhex martay 3 wiil iyo aabahood oo waayeel ah. Nin ayaa wuxuu dhalay 3 wiil, wuxuuna ahaa mid mar walba ka fikira nolosha 3diisa wiil iyo mustaqbalkooda. Wuxuuna had iyo jeer ku dadaali jiray sidii ay ku gaari lahaayeen horumar wanaagsan iyo isku filnaan. Markii ay soo weynaadeen ayuu wuxuu jeclaystay in 3diisa wiil u guuriyo gurigiisina ay la degaan, oo markaasi ah guri aad u weyn oo qurux badan, si ay ugu wada noolaadaan isagana uu garab uga helo. Ninkan ayaa wuxuu qabi jiray cudurka wadne xanuunka, waxaana dhici jirtay inuu mararka qaar miyir daboolmo isla markaana waqti dheer oo kooma galo. 3dii xaas oo wiilashiisii qabeen ayaa waxay dhibsadeen ninkan xanuunsan oo sodonka u ah, waxayna ku fikireen sidii guriga uga saari lahaayeen. Waxayna u yeereen nimankoodii, waxayna ku dhaheen, waa inaad naga saartaan odaygan xanuunsan oo aad geysaan meelaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo, waayo waxaan dhibsanay araggiisa. 3dii wiil waxay ku qanceen hadalkii ay u soo jeediyeen xaasaskoodii. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabihii qabtay xanuunkii wadne xanuunka ahaa, wuxuuna galay kooma aad u dheer. 3dii xaas ayaa waxay ku farxeen xanuunka sodogoodii, waxayna u yeereen nimankoodii, waxayna ku yiraahdeen, waa inaad qaadaan inta uu xanuunsan yahay oo aad geysaan meelaha dadka waayeelada lagu xanaaneeyo, dibna ha u soo celinina. 3dii wiil way soo qaadeen aabahood, waxayna keeneen meesha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Hase yeeshee waxay u sheegeen dadka meesha mas'uulka ka ah in ninkani ka soo qaadeen wadada isagoo miyir daboolmay, ayna doonayaan in ay ajir ku raadsadaan maadaama uusan lahayn wax dad ah. Nimankii meesha ka shaqaynayay ayaa waxay la wareegeen ninkii loo keenay maadaama uusan lahayn qof mas'uulka ah ama sheeganayo. Wiilashii ayaa markay soo baxayeen waxay la hadleen ninkii albaabka fadhiyay waardiyaha ahaa, waxayna ku dhaheen, waxaad naga soo wacdaa nambarkan markuu dhinto si aan u ogaano dhimashadiisa. Ninkii ayaa wuxuu ka soo baxay koomadii, waxaanu soo noqday meerkiisii, wuxuuna u naadiyay wiilashiisii si ay u keenaan biyo uu ku weyse qaato. Waxaanu u yimid ninkii meesha mas'uulka ka ahaa iyo kalkaaliyaashii, waxayna ku yiraahdeen, aabbo waxaa joogtaa meelaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo. Aabihii ayaa aad u nahay, wuxuuna su'aal weydiiyay takhtarkii oo ku yiri, goormii halkan imid, yaani keenay? Takhtarkii ayaa waxaa ku yiri, maalmo ka hor ayaa halkan lagu keenay, waxaana ku keeneen 3 wiil, wuxuuna u tilmaamay qaabkoodii. Aabihii ayaa wuxuu ogaaday in ay yihiin waxa sidan u galay wiilashiisa, aad ayuuna u murugooday, wuxuuna ku calaacalay, wiilashaydii miyaa sidan ii galay oo muddada dheereed kusoo tiiri tacabeelay. Wuuna ooyay, gacmaha ayuuna kor u taagay isagoo Allah ka baryayo inuu xumaanta ay u geysteen uga aargudo, waxaana gelisaa naartaada adduunyo korkeedana ku tusi ciqaab ka hor qiyaamaha intaan la gaarin. Kadib aabihii wuxuu go'aansaday inuu ku wareejiyo dhammaan hantidiisa dadka masaakiinta ah, wuxuuna u yeeray midka meesha mas'uulka ka ah, wuxuuna u saxiixay gurigiisa. Wuxuuna mar kale ka fikiray sida ay u galeen ilmihiisa oo ka fikiri jiray. Kadib wuu qayliyay, wuuna dhintay aabihii. 3dii wiil waxaa soo wacay waardiyihii meesha joogay, wuxuuna u sheegay inuu dhintay ninkii meesha keeneen. Hase yeeshee waxay siiyeen lacag aad u fara badan maadaama uu soo sheegay dhimashada aabahood, waxayna rabeen inay kala qaybsadaan hantidii iyo dhulalkii oo aabahood ugu geeriyooday. Nasiib darrada waxaa u imaaday ciidan ka socda dowladda, wuxuuna u sheegay in dhulkaani lagu wareejiyay dadka waayeelada ah. Haddaad ku cusub tahay channelkan, fadlan subscribe noo saar.